haddii aan xasuus kaaga dhigo beera xiisa leh iska daa xaqguudoo ma gudin xoorkii caanaha ee xarumaha jannada waxaa ka mid ah xaynka hooyada bismi illaahi araxmaani iraxiim maanta oo ay taariikhdu tahay 20-kii bisha koobaad ee 2025 waxaanu halkan ku qabanayaa tixdan oo la yiraahdo xuskii hooyada oo ka hadlaysa qiimaha hooyadu leedahay iyo xaqa ay nagu leedahay iyo sida ay u fiican tahay in mar walba u xusno waxa weeye magaceeda tixdan wax la yiraahdo xuskii hooyada waxay ka bilaabantaa tixdan inta xaakin sheekhiya abwaan xiisa loo qabo ama geesi xoogliyo suldaan beela kala xeertay xildhibaan dan lagu aamino iyo haddaan xuguf la soo qaato hooyoy xaqaagii ma gudin nin isxaguuja hooyoy xaqaagii ma gudin nin isxaguuja xarbi iyo rafaad iyo intaan xaalad kugu baagay maansadan xaqiiqdaa haddaan xeerkii ku caddeeyo hooyoy xaqaagii ma gudin nin isxaguujaaye dhibtii xarunta beerkiiyo intii xumaga aan jiifin xubnahaad ka tiicdiyo sagaalkaad cuntada ka xakamaysnay xarbi iyo rafaad fooshiyaad xadhi ka laalaad xuduntii la ii jaray intuu dhiiggu ku xumbeeyey xusul aniga oo leeg intaad xaynkaygu haysay naasaha xigtii aan ka jaqay intaad igu xanaanaysay xansheerkii ku gooyey iyo dushaan ka xagxaganayay anigoon xishoonayn intaad ii xilqarinaysay xaj haddaan ku geeyo iyo haddaan xoola kugu deeqo haddii aan xambaar kuugu sido intaad tahay xayaataa xidigaha cirkaa sare haddaan xaruma kaa siiyo haddii aan xasuus kaaga dhigo beera xiisa leh iska daa xaqguudoo ma gudin xoorkii caanaha ee xarumaha jannada waxaa ka mid ah xaynka hooyada waxa weeye tixdan xuska hooyada haddaynu intaa kusoo koobno oo arrin aada u qaali ay tahay anigu waxay ila noqotay ra'yi ahaan markaan eegay in hooyadu qeyb jannadii la inooga soo saaro maraynu ku dul noolay maraynu ku dhex noolay maraynu ku hoos noolay ay tahay in aada loo qadariyo o loo qiimeeyana ay mar walba waajib ilaahay nagaga dhigay